xafladda qiimaha badan ee sanad guuradii lixaad ee ururka horumarinta ee Ayadhow kala hadalka intiisa badnaa waa la dhameeyay anigu waxaan ka hadlayaa oo aan hambaleynayaa dadaalkii 6 sano u dambeeyay ay wadeen ururkani oo runtii ahaa mid volunteer ah oo iskood isku maamulayeen iskoodna waqtigooda iyo aqoontoodaba ay u horayeen waana mid mar walba u baahan la bogaadiyo oo la shaqeeyo xaflad la tagana waxa ugu qiimo badan meel ay ku kulmayaan dhalinyaro mutadawiciin ah dhalinyaro iskood u qabsaday oo iskood isku abaalmarinaya waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa maamulayaashii ama gudoomiyaashii kala dambeeyay oo cabirsaaq ugu dambeeyay oo mid kastaaba heer soo gaarsiiyay oo aan ognahay in waqti iyo juhd iyo aqoonta ay geliyeen akademiyada in badan baan ayaan la socday oo aan aad iyo aad ugu warhayay waxay aad iyo aad u taageeraan ama ay uga shaqeeyaan danyarta iyo kobcinta bulshada in badan baan aragnay iyagoo caawinaya dad danyar ah qof kasta oo islaam ama qof kasta oo degmada ku sugan waxa muhiim u ah oo aan u soo jeedinayaa inuu taageero muujiyo oo ka qayb qaato ururinta dhaqaalaha kala duwan ee bulshada ka ururiyaan arrimaha volunteer-kana haddii aan galo waxyaalaha ugu badan ee ugu faa'iidada badan ee ugu ajriga badan waxaa ka mid ah inuu qofku iskii bulshadiisa u caawiyo oo mid aan ugu dhiirigelinayo qof kastoo dhalinyaro ah ama shaqeeya ama aan shaqayn si uu u helo ajri waxa weeyaan waa inuu qof kastaaba xubin ka noqdaa haddii aanu waqti u hayna uu dhaqaalo bixiyaa waana mid mar walba laga helayo xagga alle oo ajri ah hoggaanka ururkana way ku mahadsan yihiin halka ay soo gaarsiiyeen maamulka degmada ama maamulka gobolkana waxaan soo jeedinayaa in ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada loogu daro miisaaniyad oo say u kala xariibsan yihiin ama say u kala shaqo badan yihiin loo guddoonsiiyo oo lagu abaalmariyo waayo waxaan ognahay inaanay wax miisaaniyad ku lahayn ama degmada ama gobolka markaa taana anoo ka faa'iideysanay fursad waxaan leeyahay dhalinyarada ka shaqeysa arrimaha bulshada si gaar ah lagu hayo oo miisaaniyad gaar ah kolba baahida ka shaqeynaya lagu qoondeeyo waxaan ku soo koobayaa aynu la shaqeyno aynu taageerno aynu ka mid noqono ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada taas waxa lagu helayaa ajar waxa lagu helayaa waxa weeyaan in waqtigaagii firaaqada aad ka mid noqotid waxa lagu helayaa qofku inuu firfircooni iyo maskax uu aad iyo aad u geliyo meelahaas oo kale meelaha waqtiga la geliyo waxa ugu fiican meelaha arrimaha bulshada marka waxaan ugu boorinayaa inaad ka mid noqotaan insha Allah assalaamu calaykum